halkani waa tuulada Aashacado oo ka mid ah deegaanada hoosmaada degmada Sayla barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Salal Gaashaale Maxamed Farax Handule iyagoona mas'uuliyiintani ay halkani u yimaadeen si ay dabka u suraan jawaana qaada oo si qarsoodi lagu soo galinayay samarkaasina ay halkaas ku qabteen habeenkii xal ahayd ciidamada booliska ee saldhigga rugta Aashacado oo ka mid ah deegaanada hoosmaada degmada Sayla ugu horeyntina waxa isagu halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka booliska ee rugta Aashacado kiibaage aan dabadna ku guuleysanay ayaan soo qaadnay ciidankuna hadhiye habeenba wuxuu heegan ugu jiraa inuu u xallo wixii kontrabaana iyo wixii anshaxumeed dalka laga mamnuucay inuu gacan bira ku qabto diyaar waxaan u nahay inaanu halka ka sii wadno hadhiye habeenba aynu heegan u nahay sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Salal Gaashaale Maxamed Farax Handule bisha Ramadaan dadku inuu iska cibaadeysto ka nasto waxaan ay ahayd haddaynu taageeran weyno dhaqaalaheena iyo caafimaadkeena inuu tuuri weyno waxa weeyaan inaynu mahalaka kala iyo gaadiidkaagu ku cawarmo dadku ku cawarmo yani dadka imika waxaan wadaa waxaad moodaa dad qaanac oo aan waxba wax rajaad aan u dambeyn badmida oo sababtii qofku wuxuu buuyeegi lahaa muddada la madnoocay waa muddo yar maxay ahayd waxa loo madnoocay weyn qaraynaa caafimaad oo arrin caafimaad la xiriidha inaynu intaas un bal horta garana bil Ramadaan baynu ku jirnaa waa la cibaadeysanaya deenta isku cibaadeysanay inaynu horta bal ka nasana bisha Ramadaan at least ayay ahayd laakiin waxaad moodaa in aynu dad aan anagu imka gobolkan Salal aan joogno inta badan lug baal la adeegsanaya xariirad meesha la yiraahdo lug buu ku soo galay habeenkii qof waliba isagoo degta ku sida loo yacado isagoo qof waliba degta ku sida maxay ahayd habaas meesha la yiraahdo isagoo qof waliba degta ku sida tan aynu joogno Aashacado isagoo qof waliba degta ku sida degun buu ku soo galay gaari isma soo dhaxtaaga sayrac gaari isma soo dhaxtaaga toqoshi gaari isma soo dhaxtaaga deg weeyaan wax halka lagu sii weey kani imika meel kasta gaarigu hadhaga marka hore kulleeyay dalka gaadha soo galiyay laakiin imika talagu qabtay waa deg tuurta lagu sii intaas oo magaalada soo sheegayna tuurtu ku soo gala marka koowaad waxaan mahadnaqayaa Ilaahay mar labaadka waxaan mahadnaqayaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Salal gaar ahaan rugtan aynu taaganahay ee Aashacado aan haatan taaganahay iyagii taliyahooga iyo ciidamada Soomaaliya ee muddo 3 cisho ugu dambeeyay kulanka iyo banka ugu jiray howlgalka oo kuma ahsantii shaqada qabateen waxaan dhamaanteen fulinaynaa waa amarkii ka soo baxay guddiga heer qaran ee xaaladdan COVID-19 amarkaas oo ku tacalluqa dhamaantii caafimaadka bini'aadanka waxa ay bulshadeena ka waaninaynaa ugana digaynaa qasaaraha naftooda iyo maalkooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda ku dhacay inay joojiyaan oo ay ka waantoobaan waxa laga yaabaa qaadka imika haysaan 7 saac ugu yaraan hawlgalkiisa ugu jirta waa waxa degta lagu sido waa waxa reermiga loola galayo waa waxa ummadeeni baadiyaha la inaga baabinay marka meel adag bayna la marayaa aan islaantii baadiyaha iyo odaygii baadiyaha shuraaka lala galo la qaadka noo qariyo waa marxalad marka dhinaca qaadka la eega aad runtii dadaal dheer waxa loogu jiraa gobolkani maadaama uu kala fog yahay maadaama minjaad ka soo galay halkaas 220 kilomitir ku dhawda oo intaas oo dhan soo socdo oo wadooyin fara badan oo qardajeexa la sameeyay waxaan uga digaynaa dadka wadooyinka cusub sameeynaya talaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa gaariga ama sidaamiyaan sidin gaariga aan wada aan tii sharciga ahayn soo marin ee umadu mareysay waxa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan abaalkiisana waa la marin doonaa taliya adiga ciidankaaga waxaan idinka mahadnaqayaa hawlgalka dheeriga ee idinkoo xaalad adag lagu jiro la soomay yahay gaadiidku inagu yar yahay oo baabuurteena xeebtu cuntay haddana hawlgalka dheereed galeysaan ee hadiya habeenada telefoonada ka seexanin aad iyo aad ugu mahadsantiin waxa kale oo maanta iyaga laakiin uga mahadnaqayaa ciidamada xariirad oo iyaguna haatan imika jaad gacanta ku haya oo isagana sidoo taliyuu sheegay laga daba tagi doono la gubi doono sidoo kale ciidamada booliska Saylac oo iyaguna gacanta ku haya sidoo kale iyaguna ciidamada loo yacad oo gacanta ku haya macnaheedu waxa cadeynaysaa in ciidanka booliska hawlgalkii sidii amarka loo soo saaray ay u qaateen ayna fuliyeen laakiin shacabkeena waxa leenahay waroo mudeero koobane samra salaam alaykum war shicibka dadka adeegsanaya baadiyaha u diraya aqaladooda dhigaya oranaya alla noo sii qaada jaadka war dadkaasi dadka ha ka daayaan
waa dambiilayaal qaran oo hadalka dawladda iyo sharcigii dawladda ka soo horjeeda marka baadiyaha waxaan leeyahay dadkaasi idinka ay dabka idin la soo galayaan qofkii la qabto de xarigiisa iyo ciqaabtiisa ayuu leeyahay waa inay ka joogsadaan oo dadka deegaanku aynan waxaasi aynan ay yeelin maaha markii ugu horeysay oo qaad noocan oo kale ay soo qabtaan ciidanka booliska ee gobolka Salel iyadoona ciidamada ka howlgala degmada Saylac iyo guud ahaan deegaanada hoosmaada degmada Saylac kadib wixii ka dambeeyay markii halkan loo soo bedelay gaashaanle Maxamed Faarax Xandule kaasoo dadaal badan ku bixiyay sidii uu kor ugu qaadi lahaa ciidamada kala duwan ee booliska ee degmada Saylac iyo guud ahaan deegaanada hoosmaada degmada Saylac وعلي أحمد يري على دقدرول ورك بدع TV مجال سيلع.